aqoon garadeerayaasha jooga way noo gargaareen alla kii ii gargaaro garab adag siiyo waan ku gudayaa gooray ahaataba haddaan adiga ku gudin ubadkaagu gaarin kuwa kula gayaanka ee gaalkacyo jooga ayaan u gudi doonaa macallimiintayda iyo professor Shruuc I'm not forget forever. munaasabadan oo ahayd mid si sare loo soo agaasimay isla markaana ay ku qalin jibinayeen in ka badan 40 arday oo dhameysatay ilaa 3 kuliyadood oo laga dhigay jaamacadda Gaalkacyo University ee magaalada Gaalkacyo iyadoona sidoo kale qalin jibinta dufcadan ay ku soo aaday markii dhibada loo taagay jaamacadda Gaalkacyo University oo ku beegan maanta oo kale munaasabada ay ku qalin jibinayeen ardayda maanta xafladda loo qabtay ayaa waxa ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka xubno ka socda labada gole ee dawladda madaxda jaamacadda Gaalkacyo University mas'uuliyiin masalaysa ururka Mufiid iyo qaar ka mid ah bulshada Gaalkacyo marqaati ka ahaa qalan bedelashada dufcadii koowaad ee ka aflaxda jaamacadda Gaalkacyo University dhammaan aqoon-yahankii lagu casuumay xafladda ayaa ka sheekeeyay sida jaamacadda Gaalkacyo ay uga qayb qaadatay la dagaalanka jahliga ee gacansiinta ardada soo koraysa Abduqaadir Maxamed Shirwac oo gudoomiyaha Gaalkacyo University oo ay joog u ahaa marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen ardadani ayaa ka sheekeeyay taariikh dheer bay soo martay jaamacaddu xamar ka furtaan si aad wax badan u heshaan waxay naga ahayd qolooyinka naga dambeeyana aan u wacyi gelin jirnay ee dowlad goboleedyada ama maamulada kale ee dhismaya u sheegayna dadka ku celinta deegaanka waxa ugu horeeya inaad u habayso aad u maskaxda uga shaqaysiiso si ay waxa ay ka heli lahaayeen Muqdisho ay deegaankooda ka helaan marka waa lagu nagaanayaa deegaanka iftiin iyo shucladiina lagala tagi maayo meesha ayuu ku xasilayay haddii ardaygu dugsiga hoose dhexe sare iyo jaamacaddiiba ka helo deegaanka baahi shaqo ayaa ayadana maskaxda ayaa ka shaqaysiinaysa laga shaqaysiinaya insha Allah in aan ardaydaasi baahidii shaqo ardada maanta shahaadooyinka gacanta loo geliyay waalidiintooda ayaa wajiyadooda waxaa laga dareemayay inay kaga duwan tahay maanta maalmihii adka ee ay soo mareen Umar Maroko oo gudoomiyaha ururka Mufiid oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa sheegay in jaamacadda la furo 2020 waxa waqtiga lagu beegayna waxay ahayd dugsiyada sare ugu horeeyay oo galmudug baa lagu qarjibay markaas markii waqtiga lagu beego maadaama badan July iyo August laga soo baxo jaamacadaha ay bilowdaan September iyo October baa la hagaag gaarsiiyo sidaas waxay keentay in 2010 jaamacadda la asaaso ugu dambeyntii waxa xafladda soo gabagabeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Xasan Maxamuud Heel Shirwac wuxuu ahaa markaan ku ka hadalno aabihii galmudug weeye maamulka waxaa loo magacaabay wasiirka waxbarashada asagoo fakarka oo ku haya laabta ayuu wuxuu yiri waxaa ka haboon inaan ka shaqeeyo waxbarashada sida jaamacaddan baa lagu hayay ardada tanana maaragtay wasiir ama jago kale uga faa'iido badan deegaanka